الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، جمعيه hore waxaynu ka hadalnay xanuunkan aadka loo hadalhayo caalamka oo dhan kaga qaylisiiyay corona iyo sida uu tusinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiisa iyo taagdarrada bani aadamka. maanta biidni Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu isxusuusin doonaa arrimo la gudboon qofka muslimka ah xaaladahan oo kale marka ay dhacaan ee ay soo ifbaxaan xanuunada faafa dadkana gumaada. arrinka koowaad wuxuu yahay xanuunadan sidaasi u faafaya dad fara badanna laynaya u dhimanayaan waxay noqon karaan ciqaab Ilaahay subhanahu wa ta'ala, oo Ilaahay uu ku ciqaabayo addoomo Ilaahay amarkiisii khilaafay. waxa kaloo ay noqon karaan ibtilaa min Allah, imtixaan Ilaahay addoomihiisa uu imtixaamayo. sida awgeed waxaa la gudboon qofka muslimka ah ee arka xanuunadaasi dad ay ku dhaceen iyo dalal ay asiibeen in arrinta noocaasi waana isaga ay u noqoto oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu uga toobad keeno khalad iyo gaf iyo macsiyo waxa uu isku og yahay. haddii ciqaab Ilaahay ay tahay si ciqaabka Ilaahay aanu ugu dhicin. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu ka waramay qowmu Luut iyo dembigii ay galeen siduu ugu halaagay waxuu arrintaa warkeeda ku gebagabeeyey wamaa hiya min adh-dhaalimiina bibaciid. cuquubaadka noocaasi ah iyo halaagyadaasi kuwa dhaalimiinta ah ee gardaroolayaasha ee xaqdarrada ku socda kuwa ka fog maaha. arrinka labaad, qofka muslimka ee arka qof ay xanuunadaasi ku dhaceen dawgiisu maaha inuu ku jeesjeeso iyo inuu ka dhigto wax lagu qoslo oo laga maadaysto sida maanta ay samaynayaan dadka qaarkood. dawgiisu waa nicmada Ilaahay isaga uu siiyey Ilaahay inuu ku ammaano uga mahadnaqo, inuu Ilaahay xanuunkaa dadka kale uu ku riday isaga uu ka badbaadiyey. dawgiisu waa inuu la yimaado aadaabta uu ina baray Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markaynu aragno insaanan mubtalaa, qof la imtixaamay. qaala calayhi salaatu wasalaam man ra'aa saaxiba balaa'in faqaala alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi wafadalanii calaa kathiiri miman khalaqa tafdiila lam yusibhu dalika albalaa. qofka arka qof la imtixaamay oo dhibaataysan oo yidhaahda waxaan ammaanayaan u mahadnaqayaa allaha dhibaatada uu kugu imtixaamay aniga iga salaamad yeelay iga badbaadiyey, allaha iga fadilay iga sarraysiiyey in badan oo khalqigiisa ka mid ah oo i siiyey nicmooyin aan iyagu haysan oo aniga iga badbaadiyey dhibaatooyin iyo musiibooyin iyaga ku dhacay. balaayada iyo musiibada qofka uu arkay haysatee ku dhacday isaga kuma dhacda buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. arrinka saddexaad yaa cibaad allah, wuxuu inoo sheegay nabigeeni Muxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa asaadiqu lmasduuq, waa ka warkiisa oo dhami uu run yahay. waxa aan dhicin ee uu ku waramana Ilaahay uu rumeeyo. dembiyada iyo macaasida gaar ahaanta soo ifbaxda ee ummadaha iyo bulshooyinka ka dhex muuqata inay sabab u noqoto xanuunaan hore loo aqoon. xanuunadaasi oo aada u faafa bani aadam badanina ay u dhintaan. wuxuu nabiga ka wariyey cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu inuu yidhi, wuxuu yihi ibnu cumar aqbala calayna rasuulu llah, rasuulkii ilaahay baa maalin ugu soo jeestay haddaanu nahay saxaabada. faqaala yaa macshara almuhaajiriin خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن.
shan haddii laydinku imtixaamo ilaahay baan ka magan gelayaa inaad isgaadhaan shantaase lam tadhar ilfaaxishatu fii qowmin qad faaxishadu waa xumaan iyo dembi kaste oo foolxumadiisu ay aada u muuqato oo diimuhu ay diideen damiirada saxdiina ay ka soo boodayaan cuquusha saliimka ee badqabtaana ay ka khashaafto o ay dhibsato hadday faaxishadu xumaanta iyo dembiyadu liwaadka iyo zinada iyo kuwaas ayaa ka mid ah hadday qoom ku dhex faafto xataa yuclinuu biha ilaa xaalkooda uu gaadho inay xataa la xishoon waayaan ay qarsan waayaan oo banaanka ay la soo istaagaan oo lagaba yaabo inay ducaad ku noqdaan sida maanta xaalku uu yahay oo iska dhaaf cid kale ru'asaau duwal madaxweyneyaal dowladeed ayaa waxay ducaad ku yihiin ay dadka ugu baaqaan liwaadka oo ka mida min adhari alfawaaxish fawaaxishta iyo xumaanaha u muuqaalka badan ilaa fashaa fiihim ataacuun walawjaac dadka waxaa ku dhex faafa oo ku baaha buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taacuunku waa xanuun kasta oo faafa oo dad badani daraaddii ay u leedaan ayaa taacuun la yidhaahdaa walawjaac alatii lam takun madat fi aslaafihim aladiina madow waxaa kaloo ku dhex faafa xanuuno dadkii iyaga ka horreeyay aanay aqoon oo aanay arki jirin oo aan soo marin ibnu maaja wariyey biisnaadin xasan maantana waynu aragnaa xumaantu caalamka siday ugu faaftay sida loo cilaamiyey loo baahiyey sida aan loola xishoon ahayn sida loo qurxinayo sida dadka loogu yeedhayo ee loogu baaqayo inay sameeyaan ilaahay baa wuxu uhi wamaa asaabakum min musiiba fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir wixii idinku dhacay ee musiibo ahi wixii aada kasbateen ayaa sabab u ah ee xumaan ah weliba intuu ilaahay in badan buu ilaahay idinka cafiya waxaad samaynaysaan oo dhan hadduu ilaahay idinku ciqaabi lahaa adduunyadaba maydaan joogteen dawadu markaasi waa maxay waa in wixii keenay dhibaatadaasi laga tago oo ilaahay looga toobad keeno waa in laga digtoonaado yaa cibaad allah alamnu min makri illaah oo macnihiisu uu yahay qofku isagoo ku dhex jira wixii sababaya ciqaabka ilaahay haddana ciqaabkii ilaahay inaanu ka baqahayn kana warwarsanayn bal aanu xusuusnaynba waana sidaa dadka maanta xaalkoodu uu badan yahay adduunyada waa idinkaa arkaya sida looga hadlayo dowlado munadamaad iyo ururo kala duwan muasasaad dad aqoomo iyo culuumo kala duwan sheeganaya baa ka hadlaya aada bay u yartahay intaad maqasho qof soo hadal qaadaya xumaantu inay sababto xanuunadan faafa cid xumaanta u nisbaynaysa ama u tiirinaysa odhanaysa war waxaani wuxuu noqon karaa ciqaab ilaahay intaad maqashaa aada bay maanta u yartay waxaanay arrinta noocaasi ka turjumaysaa dembi aada u weyn oo dadka gala ay yihiin kuwa khasaaray sida ilaahay uu ku warramay oo ah qofku in isagoo xumaantii samaynaya haddana uu isu haysto ciqaabka ilaahay inuu aamin ka yahay afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqowm alkhaasiruun arrinka afraad wuxuu yahay yaa cibaad allah waxaynala gudboon inagu haddaynu muslimiinta nahay inaynu ku camal fallo inu dhaqan gelinno markay xanuunadan faafaa soo ifbaxaan iyo xaalad walba التعاليم الإسلامية الواقية من انتشار الأوبئة والأمراض talooyinka diinteena islaamku ay nasiisay ee ku salaysan waxyiga ilaahiga ah ee afariimo xagga allaha khaaliqa ah ee addoomaha cid ka taqaana dantoodana uga ogaal badani aanay jirin alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiif alkhabiir maanta haddii la yidhaahdo munadamatu asixa alcaalamiya ururka caafimaadka ee adduunyada ayaa talooyinka noocaasiya soo bixiyey
si looga badbaado xanuunada faafa aad baa loo qaadqaadayaa oo loo sheegayaa oo la isugu dhiibdhiibayaa oo la isugu wacyi gelinaya oo wasaaradaha caafimaadku ay u wadwadayaan oo dhakhaatiirtu ay ugu hadlayaan laakiin kaana lana qabla tacliimaatihim تعليمات إسلامية إلهية نبوية نافعة أكثر من نفع تعليماتهم إنك وحين هيسني تلوين كودا هرتود تلوين حق إلهي نوغيم ونبي محمد نوشاقي تلوين ديني ودين عبادك إلهي لو قد وادو دين عنك وانفعية وصابوا نقنايا إنه إلهي حنون ذا كإلاليه waxaynala gudboon tacliimaadkaasi inaynu ilaalino waxaa ka mid ah taqtiyatu alaaniya nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay weelka in la dabool la-aan lagaga seexan sanadkiiba mar xanuun baa soo baxa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam weel kasta oo af bannaan ayaa xanuunkaasi u galaa macnuu wuxuu noqonayaa qofkii weelkaa isticmaalay xanuunkaasi waa uga soo gudbi karaa markaa ka hortagu waa maxay weelka in la daboolo waxaa ka mid a tacaaliimtaasi cadamu nafki fi sharaab waxaad cabbaysa inaanad afuufin ha noqdo shaah ha noqdo caano haddaad saxar ku aragta iyo wax kaloo aanad jeclayn inaad ka gembido saa intaad u yaro jeerjeeriso aad ka tuurto ama aad ka saarto wey laakiin inaad afuufto islaamkuma ogola raashinka la cunayo laftiisu hadduu kulul yahay iska qabooji laakiin ha afuufin dad baa kaaga dambayn kara weelkaa isticmaali kara microbaat iyo bacteria adiga kugu jirtay baa raaci karta afuufitaankaagaas waxaa ka mid a saas oo kale cadamu tanafusi fi linaa haddaad weel wax ku cabbayso sida xoolaa waxa u cabbin oo qurquro dabada ha isu gelinin markaad dareento inaad u baahan tahay inaad neefsato ood naqas iska soo saarto weelka afkaaga ka foge nebi maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a sidaas oo kale cadamu likhtilaati bilmusaabiin qofku hadduu isku og yahay xanuunada isdhexgalku inay tallaabaan ay gudbaan sababu u noqdo alamraad almucdiya waa inaanu dadka dhex gelin xataa salaatu ljumuca waljamaca waa inaanu iman oo gurigiisa uu iskaga tukado qofku hadduu xanuunka noocaasi uu isku og yahay qofka caafimaadka qaba laftiisu dadka xanuunada tallaabo qaba waa inaanu iska dhex gelin oo si xanuunkaasi inuu usoo tallaabo sabab u noqon karta waa sababuune tallaabistu talada ilaahay bay ku xidhan tahay waa inaanu dadkaasi u dhex gelin oonu la dhaqmin laa yuuridu almumridu cala almusixi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka xoolihiisu ay xanuunsanayaan yaanu xoolihiisaasi aanu ku darin oo aanu u geynin ka xoolihiisu ay caafimaadka qabaan xoolaha u haysto xoolihii baa sidaa la yidhi bani aadamkan waxaad malaynaysaa waxaa ka mid a saas oo kale haddii waddan lagu sheego xanuunkaasi uu ka soo ifbaxo qofka muslimkaa waa inaanu u safrin qofka joogaana waa inaanu ka soo bixin waa xajrun صixiyun jaa bihi اlislaamu qabla tacliimaati aطibaa'ihim waa karantiimeyn caafimaadka la xidhiidha oo islaamku uu sheegay 1400 oo sanadood hortood ama muddo ku dhow horteed inta aanay dhakhaatiirtoodu talooyinka noocaasiya iyo aqoonta caafimaad ee ay sheeganayaan aanay gaadhin cumar ibnu khataab radia allahu canhu isagoo amiiru lmu'miniin oo shaam ku socda oo uba dhowba ayaa waxaa loo sheegay in xanuunka daacuunka la dhahda uu ka dilaacay waxaa la socday cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabiga la dhaha wuxuu ku uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi haddii dhul aad ku maqashaan daacuunka ha gelina kuwa ku jiree joogaan ayaanay ka bixin
arrinka shanaad wuxuu yahay yaa cibaad allah waa inaynu ilaalino suu ilaahay inoo ilaaliyo xuduudda ilahay iyo sharaa'icdiisa faralladiisa iyo amaradiisa axkaamtiisa iyo diintiisa taasaynu ku helaynaa ilaalinta ilahay naga ilaaliyo masaa'ibta iyo balaayooyinka wareegaya qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam fima rawaahu tirmidi ixfad illaha yaxfadka ilahay diintiisa iyo sharcigiisa ilaali ilahay baa ku ilaalin doona as'alu allaha alcadiim rab alcarshi alcadiim an yaxfadana wayaxfada jamiica almuslimiin aqulu qawli hada waastaqfiru allaha lii walakum alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alظaalimiin uma asalaatu wasalaamu cala cabdi illahi warasuulih wacala aalihi waasxaabih uma ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah arrinka lixaad wuxuu yahay waa in la farabadiyo ducada ducadu waa shayga qure uu sheegay nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam inay qadarka ka hor tagto oo qadarku intaanu dhulka usoo daadegin ay isku qabsadaan samada iyo dhulka dhexdooda oo kii xoog badtaa dabeetana tiisa ay noqoto qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ina ducaa yanfacu mima nazla wa mima lam yanzil facalaykum cibaad allahi bidducaa rawaahu tirmidi ducadu waxay wax ka tartaa balaayada aan weli soo degin ka hortag bay u noqotaa ta soo degtayna daway ka noqotaa wa qaala calayhi salaatu wasalaam man futixa lahu minkum baabu ducaa futixat lahu abwaabu raxma qofka idinka mida ilaahay uu u furu waafajiyo u fududeeyo baabka ducadiiyo ilaahay inuu baryo kaasi waxaa loo furaa albaabada raxmadda ilaahay oo acdamu wasiilatin linayli raxmat illaahi su-aalu llahi wa ducaauhu waddada iyo sababta u xooga badan ee lagu gaadho ilaahay raxmaddiisa waa ducada iyo ilaahay in la baryo wamaa su'ila allahu shayئa yani axaba ilayhi min an yus'ala alcaafiya ilaahay wuxuu ka jecel yahay wax la weydiisto ma jirto in ilaahay caafiye la weydiisto badbaado nabad qab balaayo la-aan walihaada baa ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa oo subax iyo galab kastaba u akhri jiray allahuma inii asaluka alcafwa waalcaafiya ilah waxaan ku weydiisanayaa wixii dembi iyo gaf iga dhacay inaad ii dhaafto oonad igu ciqaabin masaa'ibta iyo balaayooyinkana ilahu inaad iga nabadgeliso oo maxay aad iiga nabadgeliso fii diini diintayda aad iga nabadgeliso oo diinta aanay musiiba igaga dhicin wa dunyaaya adduunyadayda wa ahli wa maali qaraabadayda iyo dadkayga iyo maalkaygaba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xanuunada ilahay buu ka magan geli jiray ducada laynooga baahanya waxaa ka mid a xanuunka iyo kuwa kaleba inaynu ilaahay ka magan galno oo aynu farabadino alisticaadata billahi min hada alwaba wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min albaras ilah waxaan kaa magan gelayaa baraska waaljunuun waalida waaljudaam iyo xanuunka judaamka la yidhaahdo wa min sayi lasqaab iyo xanuunada xunxun oo dhan kansar iyo corona iyo kuwa kale lamidkaaba arrinka toddobaad ee inala gudboon waxaa jira dhufaysyo balaayooyinka laga galo oo inoo tilmaamay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maanta maro yaroo sanka lagu xidha iyo waxyaabo kale oo mucaamalo adduunye ku saabsan ayaa aada loogu dadaalaya laakiin dhufaysyadii dhabta ahaa ee rasuulkeenu inoo sheegay balaayooyinka in lagaga badbaado waa dayacayin waxaa ka mid a gurigaaga markaad ka baxaysa inaad tidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah wuxuu rasuulku yihi qofka sidaa yidhaahda yuqaalu xiinaidin hudiita wa kufiita wa wuqiita waa lagu hanuuniye wanaaggii baa lagugu hanuuniyey wax walba waa lagaaga filaado waa lagaa difaacaya wa wuqiita waa lagu xifdinaya waa lagu ilaalinaya waa kalimaat qaliilaat waxaasoo abaalmarina lagu helayo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah
وحكمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رسولك وحي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل يوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. قفك ذكرك 3 jeer هذا صبحي 3 jeerna galabtii waxba ma dhibaanba dhibaato oo dhan buu Ilaahay kaga ilaaliya. waxa kamid ah inaynu akhrisano suuratul ikhlaas wa qul huwallahu ahad, qul a'uudhu birabbil falaq, qul a'uudhu birabbin nas fi kulli sabaahin wa masaa, subax kasta iyo galab kasta midiiba 3 jeer. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي علمه ذلك: تكفيك من كل شيء. 3 suuradood haddaad mid walba subax iyo galabtii 3 jeer akhrido wax walba way kaaga filaanaysaa, Ilaahay baa dhib kasta kaaga difaacay. waxaa kamid ah 2 aayadood u dambeeya suuratul baqara: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. رسولك من قرأ هاتين الآيتين من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. فكل بضع آيات سورة البقرة قدام بيه بين أخريا كفتاه أي من كل شر ومصيبة وبلية. أرنك السدادات وحو نبي قانو إنو الشاقي معروف كإيا وناقي إحسان كقفك والصمية إنو الصباب النقضاء إنه إلهي بلايوين كإيو مهلكات كوحيبا وحلاقا وكيلاليو حتى عافمات بالغو هلا. قال رسول الله فيما رواه الحاكم عن أنس: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وناقا قفك والصمية وحو كيلاليها ميلا حنحن اللقو دعوه والآفات مصائبته والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ابن القيم وحيري بل في رسالة هذا الكاه: ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان. دووينك وين حنونك ليسك الضبيبه وحاكم ده خير إيا وناك إيا السما فالقف كينو السماء، والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله. إلا فربدي الذكر إيا الدعاء إيا إلهي سبحانه وتعالى انت لو قلبي تشبه وباهي الله موجسته إلا بريه، والتوبة إلهي الله توبة كان. ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية. الرماهاسي إحسانك يا معروفك ذكرك يا الدعاء خير ودن ولا السمية waxay leeyihiin raad weyn bay ku leeyihiin difaacitaanka balaayada iyo qofku xanuunkii inuu ka bogsado shifaa helo. raadkaasi oo ka weyn raadka ay leeyihiin al-adwiyatu tabiiciya, dhiraha la cuno ee dawaaha loo cuno iyo kuwa kiimikada ah ee isku darka curiyaasha kala duwan laga sameeyay. laakiin man yantafi'u bihada ومن يحصل على هذا الأثر يكون انتفاعية يراد كويا لنا، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. waxay taasi ku xidhan tahay inaad ku bogsato dhikriga iyo ducada iyo ihsaanka iyo macruufka sida ay naftaadu diyaar ugu tahay arrinkaas, sida ay naftaadu u aqbalsantay. haddaanad ka waran kuba kalsoonayn oo aad kaga kalsoon tahay dawooyinka kiimikada ah ee inay dhib iyo dheefba leeyihiin la isku waafaqsan yahay. hadday caqiidadaadu daciif tahay ka waran iyo iimaankaagu iyo tawakuluka cala allah, dhibaatadu xaggaagay ka timi. haddaanad nafciga iyo waxtarkeeda aad u aaminsanayn ka waran loo tani naga daayo dhakhtar inoo gee. arrinka sagaalaad ee u dambeeya arrimahan oo kale markay dhacaan waa in laga digtoonaado wararka ku tiri kuteenka ah, bal xataa kuwa runta waa inaan la faafin. faafintoodu ay sabab u noqonayso dadka in argagax iyo deganaansho la-aan uu ku beermo. oo maanta waxaad maqlaysaa dadkeena ole 2 qof baa halkaa lagu sheegay, qof baa meel heblaayo lagu hayaa.
wararkaasi oo tixraax rasmiya aan lahayn waxa ay beerayaanna waa baqagelin iyo argagaxun dadkii ay ku sameeyaan arrimahan oo kale marka ay yimaadaan iyo wax allaala wixii nabadgelyada ku saabsan nabadgelyo jidheed mid caafimaad mid cunto mid dagaal iyo nabadeed waa in dadka talada haya looga dambeeyo qaala allahu tacaala waida jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila alrasuuli waila uli lamri minhum lacalimahu aladina yastanbituunahu minhum allahuma rabbana atina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد